السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada YouTube ka Abdikariim Daahir. Fadlan haddii aad booqashada marka ugu horeyso subscribe saar adigoo madsan. Maanta waxaa idin hayaa in laptop-kaada aad ka dimi kartid mobile-kaada. Waxaan rabaa aniga mobile-kayga anigu haysto laptop-kayga ugu fiican inaan ka dimi karo. adigoo laptop-kaada daminin inaa mobile-kaada ka dami kartid inaa internet haysatid internet-kaas oo labadooda ay ku xiran labadooda waxaa ula jeedaa mobile-kaada internet-ka ku xiran laptop-ka internet-ka ku xiran inay same network ay yihiin haddii internet-kan uu ku xiran yahay oo hotspot oo kale mobile kale ama internet-kan uu ku xiran yahay modem oo kale ee labada internet kala duwan yihiin suurtagal ma aha inaad damisid marka waxaa qasab ah hal internet oo isku mid inay ku xiran yihiin mobile-kaada iyo laptop-kaada haddii aad u baahanahay inaad soo degsado application-kaas waxaad galay Play Store-ka markaad gashid hadda Play Store-ka ayuu isoo muuqanaa qaybta searching ayaa waxaad ku qoray Unified uu ku soo qaban aniga hadda hore ayuu soo degsaday Unified Remote asiga ku dhufo marka isla markaa ku dhufto waa kana Unified Remote adiga markaas waxaad dooranay install waad ku shubanay aniga hadda wuxuu weydiinaa ina update gareysto update ayaan ka dhiganaa marka adiga dhufto install ayuu ku soo qoraa install ayaa ku dhufanay uu ku soo degaa shaashada mobile-kaada ayuu ku soo fuulaa aniga hadda ma update gareynayo waa iska dhaafaa marka soo degsatid oo application-ka uu ku dhamaado installation-ka marka Chrome soo gashid qaybta kore ee URL-ka ayaa waxaad ku qoray Unified waa kan aniga hadda hore ayaa u soo degsaday marka waxaa ku qoray unifiedremote.com intaas ayaa ku qoray enter markaad enter dhaadid isla markaa waa kana the one and the only remote for your computer marka download la soo degsanay download ayaan dooranaa click meeshaan waxaa ku qoran other versions ama latest server marka kan ayaa dooranay oo latest server-ka waa midka ugu dambeeyay hadda isla markii uu ii soo degayaa wasla aragnaa server setup marka wuxuu idhaa meeshaan download intuu socdo follow us on Twitter-keena ku soo biir waxa siyaanay u baahan kaliis kale hadda uu ii soo degay server setup uu ii soo degay marka asiga la ku sii dhufo oo double click teh waxaad doorataa accept kadib waxaad tahdaa next side next install isla markaa kana meeshaan ayuu soo fuulaa server started hadda uu kugu shuban yahay soopinay application-ka ayaad ku dhufanay application-ka markaad ku dhufatid wuxuu ii soo qoraa hadda meeshaani full version-kiisa basic inputs-ka marka iska dhaw file manager keyboard waxyaabahaas ii soo qoraa isla markaa fiiri qaybta kore wuxuu igu soo qoraa desktop G3 IKI4M macnaha waa laptop uu ku xiran yahay waana laptop-kayga hadda uu ku xiran yahay application-ka waxaa dooranay marka power-ka aniga hadda inaad damiyaa rabaa laptop-kayga wuxuu ii soo qoraa restart inuu dam uu soo daarmo shutdown log off hadduu xiran yahay waaye sleep oo kale wake on LAN oo local area network hibernate iyo abort aniga marka hadda inaad damiyaa rabaa waxaad dooranaa shutdown markaan doorto isla markii laptop-kayga uu damaa marka si isla aragno waxa suubinaa markii aan shutdown doorto click siiyo waxa damay laptop-ka qaabka isla damayaan ina isla aragno asla socon meeshaan ay ku qoran tahay shutdown iyo restart haddii u baahan laptop-ka inaan restart u diro restart ayaan u diraa laakiin hadda anigu u baahni waxaan rabaa inaan damiyo
shut down ayaan doornaa. Shut down kan doorto isla markii laptopkayga fiiri wuu damaa.